Maalin Jimco ah oo Said u qabow ayaa lamaane dhalinyaro waxay dhameeyeen ugu dambeyn safarkoodii ay u safrayeen hotel meel cidla ah kaas oo ay rabeen fasaxooda inay ku soo qaataan meeshaas kaligood. Subaxii hore ee maalinkaas gabadha saaxiibkeed wuxuu sabraas uga dhigay inuu shaqadeeda ugu tago kadibna uu u soo qaaday boorsooyinkeeda ayadoo uu markaas u sheegay inuu u wado hotel aad u weyn oo qaali ah. Markay meesha galeen waxay la yaabtay in hal qof uu meesha reception-ka uusan joogin. Waxay istiri markii hore saaxiibka ma uusan sii qaban qol, balse xogaa markay ay joogeen waxa ay ku aragtay miiska ayadoo ay meesha saaran tahay furo kuna qoran yahay magaca Davis qolka 75. Waxay isdhaheen hotelka shaqaalaha ayaa ku yar, sidaas darteed furihii ayay qaateen kadibna waxay u dhaqaaqeen dhinaca qolkooda. Markii qolka galeen waxay aad ula yaabeen qaabka uu sameeyay qolku inuu Said qadiimi u yahay. Said ayuu qadiimi u ahaa heer uu sameyshaasi aysan suuli lahayn. Waxay ku qasbanayeen haddii suuli u baahan yihiin inay aadaan dhinaca hallway-ga oo isticmaalaan suuliga caamka ah. Waxay sidoo kale la yaabeen daaqadii qolkaasi inay gebi ahaanba birar ku xirnaayeen. Way la yaabeen waxaana laga yaabaa inay la xiriirto sababo amni darteed. Waxayna go'aansadeen habeenka kaliya inay u samri karaan. Markay shaqaale arkaanna waxaa laga yaabaa inay weydiistaan qol cusub, haddii ay waayaanna waa iskaga tagi karaan meesha dhan. Alaabtoodu way dhigteen. Gabadhiina waxay aaday dhinaca suuliga ayadoo markaasi biyo kulul ku qabaysanaysa. Ugu yaraan suuliga biyo kulul ayuu leeyahay waana nadiif ay isku sheegtay. Markaas ayay ahayd markii u maleysay inay maqashay codad banaanka ka yeerayo. Isla markiiba waxay timisay shaawarkii ayadoo dhageysanaysa. Waxay maqashayna wadna xanuun ayuu ku ridi gaaray. Waxay ahayd niman codkooda ayagoo markaas dhahaya inay caawa soo dhici doonaan kadibna ay gabadha qaadan doonaan. Isla markiiba cabsi ayaa gashay, shaawarkiina degdeg ayay ku dhameysay. Madaxa ayay albaabka ka soo dusisay iyadoo isdhahaysa qof ayaa meesha ku arki doonta, balse waxa ay la yaabtay inuusan hal qof meesha joogin. Gabadhii saaxiibkeed ayay u tagtay waxayna u sheegtay waxay maqashay. Kadibna isagu wuxuu sheegay inay waalan tahay sababta hallway-ga isaga ayaa soo maray, hal qofna meesha ma joogo. Waxay u egtahay hotelka gebi ahaanba labadooda kaliya inay ka joogaan. Sariirta ayay ku jiifsadeen waxayna la yaabeen sariirtu markaasi inay ahayd mid aad u raaxo badan. Isla markiina way kameen, balse xogaa kadib gabadhii waxay maqashay sharkan. Markaasna way ka soo kacday hurdada waxayna tiri qof ayaa isku dayay albaabka inuu ka soo galo. Waxay kacisay saaxiibkeed Dave, qof ayaa isku dayay inuu soo galo. Waad wareersantahay ayuu ku dhahay. Waxaan u malaynayaa codka dabaysha inuu yahay. Fiiri, albaabadoo dhan way ku fulan yihiin, sidoo kalena daaqadaha biro ayaa ku xiran, hal qofna ma soo gali karo, soo uma jeedin ayuu ku dhahay. Arrintaas xoogaa ayay dejisay, balse gebi ahaanba nafis ma aysan dareemeynin sababta waxay soo xasuustay wixii ay markii hore maqashay markii ay suuliga ku jirtay. Xoogaa kadib sharkan ayay maqashay kadibna way fariisatay ayadoo fiirinaysa qolka gudihiisa. Ugu dambeynna waxay aragtay meesha dabka ayay isla markiiba ku fakaday. Sariirta ayay ka soo kacday kadibna waxay kor u fiirisay meesha dabka. Waxay dhahday Dave, kac, meesha kore ma xirna, meeshan ayay ka soo gali karaan ayay ku qaylisay iyadoo fiirinaysa. Dave wuu soo kacay waxaana muuqata maanta dhan inuu soo jeeday. Wuxuu ku mashquulsanaa albaabka inuu furo. Ugu dambeynna wuxuu soo galiyay qolka laba nin oo markaasi qaba dhar madow. Waxayna u soo dhaqaaqeen dhinacii ay gabadha fadhiday. Gabadha way ogeed inay iyada u yimaadeen, markaasna waxay rabtay inay qayliso balse ma ay qaylin karto. Waxay tiri Dave, maxaa sameysay? Sababna ah sida u sameysay. Waxaa caddaatay Dave inuusan arrintaas oo dhanba u dangalaynin, wuuna daawanayay iyagoo markaasi labadii nin gabadhii la socotay u dhaqaaqeen. Waxayna u jiiteen gabadhii dhinaca banaanka ayagoo u jiidaya hallway-ga ilaa meesha ugu dambeyso ee mugdiga ah. Waxaa ugu dambeyn soo baxday inuu Dave ku guuldareystay khamaar ula galay kuwa maafiya ah, markaasna oo deyn aad u fara badan lagu lahaa. Maadaama uusan bixin karin wuxuu u sheegay inay saaxiibtiis qaadan karaan, iyagana way ka ogolaadeen ayagoo u sheegay inuu hotelkaas keeno si u dhacdo arrinta. Dave hotelka ayuu ka soo baxay asagoo ku faraxsan inaan deyn lagu lahayn, wax dambiina wejigiisa kama muuqan wixii uu hadda sameeyay.